qaar ku mid ah barakacayaalka ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo muddooyinka dambeeyay food saartay xaalad nolol xumo iyo waliba iyo geedka hay'ado gargaarka goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku codsadeen intii la heladeera gargaara barakacayaalkan ku nool kaamka Hareero Solow oo kiyaala suuqa dugaanduga ee xaafadda wadajir ee magaalada Baydhabo oo la hadleen warbaahinta Koonfur Galbeed iyo waliba ay codsadeen intii markaas la heladeera gargaar degdeg ah walibana hay'ado gargaarka iyo waliba wasaaradda arrimo bulshada sida caafimaadka biyo gargaarka walbarashada iyo dawladda hoose Baydhabo iyo markaas in sheegan intii aan baahanyin intii la heladeera biyo bacda la saarado guryo raashin caafimaad musqul iyo kaararka iyo biyayan hay'ado gargaarka بدر ملا جوجل ملا ليلو ملا والب سأسكو أنتري غير رسالة. ini wadu halkay idan fayl barakayana waxana barakay oo mugna gaajaysana kampani Hareero Solow waa kana baahiyanku naqabna kulay raashin maqabna suulsaar maqabna wal naqabna mala qolhato qoran wal naqaadinin mala may osadaasan fariin darasan dawladda hay'ado samafalka dadka oo muslimiinta may fariin daras ما فريان دري أنت أو جرجار أصبح أو عن دقيقة عن هنسيو انتاسنا أون مرنا أتكانوس إيه جاجدا إيه ولا أتكانوس أون يو فران بيت كفران كارتير فران أو فران كديران ولا فران بيله يا فران جلمت كفران ولا فران ملسو رسول الله توقعت الكويت غاية مختار متكرر لها 6 سنين تروح باهنا بيم قبل أحمد معاش شاشم قبل حتى أقول لك رجال قبل لما بوسط شيء عليه هني كله قبل ما يفرق أنت هيدو مسلمين ولا يوم قبل ذاك كعب قدر عين من الهاي يدرسوا ولا ده توان دولان تود بعدك تعال ما يفرق أنت مسلمين ولا يوم قبل ذاك هذا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 6 سنين تكتبون وهاينا نقول ولا إلهي عروس ما وكان سوين ولا ما يفرق مسلمين إنه أنا ولا يوم قبل ذاك يا فدان مغاي يكون سلام الله كام كن Hareero Solow الله مهايسن بدر مهاين سوسار مهايسن أنا أرسل المنسين أي أمور المنسين ما ينبعنا أنتي هيدو دكتور غرغر أيام سيام ينبعنا راشين ينبعنا وركاست ينبعنا هيجيرو كمان kale gudiga hay'adda qaxootiga iyo barakacayaalka Koonfur Galbeed waliba oo baaqan direena hay'ado samafalka ee ku shaqeeyeen Koonfur Galbeed intii oo markaas caawimaad haldeeran dadka ka nool kaamamka barakacayaalka isla markaasna iyo garab surman xilliyada adag dhammaan hay'adaha ka howlgala state-ka Koonfur Galbeed gargaarna loogu geysto gobolada Baay iyo Boqol iyo Shabeellada Hoose meelaha oo dhibaatooyinka ay ka dhaceen haddaba waxaan u jeedinaynaa baaqaasi in ay la soo gaaraan dhammaan hay'adaha UN-ka qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga internationalka ah iyo kuwa maxalligaba gargaar degdeg ah waxaan aad uga mahadcelinaynaa hay'adaha gacanta ku haya howlaha gurmadka ee hadda socda oo ay ka qayb qaadanayaan waxaan ku dhiirigelinaynaa inta kalena in sidoo kale ay saf ay wada noqdaan si ay wax uga taraan kuwa maanta ku dhibaataysan xeryaha qaxootiga dhammaan dadka oo dhan hay'adaha si ay ugu soo gurmadaan qaylo dhaantaasi ayagoo gacan ku siinayo xafiiska gudiga qaxootiga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaan u rajaynaynaa dhammaan hay'adaha in ay u nuglaan doonaan codsiyada aan u jeedinay oo bini'aadnimada ah oo ah howlaha ayagoo idman in ay u qabtaan ummadda taagda daran ee ku nool xeryaha qaxootiga ee state-kan Baay iyo Boqol iyo Shabeellada Hoose meel alla meeshii oo qaxootidaasna ay ka jiraan dhibka oo wada saameeyay oo aan hal meel ahayn oo dhibkaas inta xeryo ku jirto oo ay saameeyeen kuwa meelaha saddexda gobol oo kala duwan iyo degmooyinkooda iyo tuulooyinkooda ay joogaan waxaan warkayga ku soo gudbinayaa wada shaqeyn wacan iyo aqbal wacan ay naga ogolaadaan hay'adahaasi baaqa aan u jeedinayno wada shaqeyn dhowna ila leh dawladda Koonfur Galbeed dadaal weyn iyo juhdi weyn ayay wadaa oo ay ka mid tahay dhammaan wasaaradaha sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda biyaha
oo ay kol iyo mar walbaba ay ka geystaan gacan weyn iyo wasaaradaha kale oo dhammaantood ka howlgala arrimaha qaxootiga waa uga mahad celinaynaa taasoo ay jirto istiraatiijiyad u degsan koonfur galbeed oo ku xusan xalka waara mar walbana dowladda ay ku haminayso in dadkani loo gaaro xal waara oo lagu samato bixiyo ay xal waarana ay uga gudbaan qaxootiga ay dibna ugu laabtaan meelahii shalay ay ka yimaadeen si ay noloshoodii oo caadiga ah ay u qabsadaan waxaan soo jeedinaynaa in ugu dambeyntii gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka xeryaha ku dhibaataysan oo dhibaatada ku haabeysatay warkaygana waxaan kusoo gabagabaynayaa wabilaahi towfiiq Abdaasiriya warbaahinta koonfur galbeed magaalada Baydhabo